Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabi waxaa raaqsaday maalintii aan ugu kala gooyna hadda noo sheekeeyo soo baxa. Qaybteena hore wixii nagu dambeysay markii uu bahalka wax igu soo ordayeen. Wixii markii tuu isoo istaagayo dhugtu wax igu dhaan waa ku xiisay. Anina markaas ayaan mirdoomay oo dhulka ayaan ku dhacay. Markii aan dhulka ku dhacay, markii dambe waa soo kacay. Dhulka markaa ka soo kacay waxaa dareemayay caatis. Marka dhulka soo kacay caas anoo dareemaya ayaa waxaan arkay darbiga oo wax ku qoran yihiin. Darbiga wixii ku qoran waan garan waayay. Xarf ayaa darbiga ku qornaa. Moobilkayga ayaa la soo baxay, waan suuray. Markaan sawirka qaaday wixii darbiga ku yeeleen way tirtirmeen. Daqiiqadii waxaan u diray ninkaygii markaas waan wacay. Markaan waxaan ku iraahday wixii aan kuu soo diray ma aragta ayaan ku dhahay. Wuxuu intuu qoslay wuxuu igu dhahay haa darbi waa ii soo dirtay, darbi kaliya aan arkaa. Markaas intaas ayuu igu dhahay. Ninkayga waxaan ku iraahday darbiga dhig ayaa ku yaala, ma aragti biya xarfa dhig ayaa ku qoran. Wuxuu igu dhahay adiga iyamahan waa ka dartay. Wuxuu igu dhahay iyaantan aad ayaa kaga soo joortay sindusaynta guriga kaliya joogtay. Aniga ayaa ku imaan doonay bal iska sii joog. Aniga moobilka ayaa ku dumiyay waayo waxaan ogaa inuu asaga rumaysaneen. Maalin kastana intaas ayuu i dhahaa. Aniga waxaan jira waa inaan kashifaa. Waa inaan kashfa aniga waxaan jira. Markii dambe aniga waa soo baxay, boorsadii ayaa soo xirtay, guri kale ayaa aaday. Aniga walaalkay ayaa wacay maalintaas, laakiin maalintaa waxay ahayd maalintuu jaamacadda fasaxa u ahayd. Aniga waxaan u sheekay waxeego dhan, sawirkiina waan u diray. Markaa sawirkii u diray walaalkay wuxuu igu dhahay haa dhig ayaa ku yaala, been maaha dhig ayaa ku yaala ayuu igu dhahay. Aniga markii dambe intaa xanaaqay ayaa ninkayga u tagay. Ninkayga markaas waan ku qeyliyay. Markaa ku qeyliyay walaalkay ayaa soo wacay wuxuu dhahay ha abaayo xarfaha hadaa xasuusatid waraaqad ku qor ayuu igu dhahay walaalkay. Aniga waxaan soo qaatay waraaqad iyo qalin, kursiga ayaan soo fadhiistay. Wixii aan habeenkii dhaweeta arkay ayaan isku dayay inaan qoro. Waxyaalihii qaar ayaan qoray. Markii dambe walaalkay ayaa wacay, waxaan ku iraahday waa qoray. Markaas ayuu wuxuu igu dhahay haya waa yahay dad ayaa soo diraya sidii u ogaadaan waxay yihiin ee guriga ka bixi. Walaalkay oo wuxuu kale igu dhahay hadii wax xun dhacana isoo wac. Markii dambe walaalkay moobilka ayaan ku dumiyay. Markii dambe moobilka ayaa aniga iska isticmaalayay. 4 maalmood ayaan ka soo wareegatay. Maanta waraaqad ayaa walaalkay u diray. Markii dambe anoo jiifa ayuu walaalkay isoo wacay. Wuxuu dhahay si fiican ii dhageyso, dhagahaaga wax yar isii. Intaas ayuu waraaqadii ayaa raadiyay. Waraaqadii bicdaheeda ayaa soo raadiyay. Marka ii dhageyso waxa ku dhahay haya waa yahay. Sidaa u raadinaya waa daalay. Markii dambe wiil isku jaamacad ahayn ayaa waxaan ku iraahday fartaan ku qoran ma taqaanaa. Markaas ayuu wuxuu dhahay haa fartaan waa aqaanaa. Waxaan ku iraahday luuqadan ma garanaysaa. Markaas wuxuu igu dhahay haa waa garanayaa. Luuqadan waxa weeye luuqada Laatiina. Markaas wuxuu dhahay maxay ka macno tahay. Markaas wuxuu igu dhahay waxay ka mid tahay caawi. Yaa way qofka caawinaada ka dalbanaya. Ma aqaan walaal qofka caawinaada aniga iga dalbanaya. Aniga dhan jirkayga ayaa i gargariiday. Ma aqaan qofka aniga i dhahay caawi. Su'aal hadda ma baqaysaa adiga? Guriga ma ka baqaysaa? May abawe guriga hadda kama baqayo. Waxaana kama baqayo hadda waa caadi. Gurigan wax ayaa ku jira su'aal. Guriga markuu ninkaagu umaado u sheeg inaad guriga ka guurtiin. Walaalkay Maxamed Cabbaar ayaa isla hadalnay kadib moobilka ayaa ku dumiyay. Waxaa ka soo wareegtay isbuuc wixii waas hilmaamsiiyay. Markii dambe waxa isoo wacay Axmed. Markaa ka qabtay asagoo walwalsan ayaa wuxuu ugu dhahay su'aad xagee aaday? Shaqada ayaa hadda ka imid, dharkaagana kuma jiraan, qasanada xagee joogtaa? Markaas ayaan ku iraahday waxba ha walwalin, aniga hotel ayaa jooga bartaas ugu imow. Aniga meelna kuma imaanayo, gurigaaga ku soo noqo. 10 daqiiqo gudaheed ayaan ku sugayaa. Adiga gurigaaga joogto ayaan ku imaan. Ana hadalku dhameystira moobilka ayuu igu dumiyay. Aniga aad ayaa u xanaaqay. Hadalada xun ayuu i dhahay. Aniga marnaba inaan meel aado. Hal saac ka bacda moobilkayga ayaa soo dhacay. Waxaana isoo wacay ninkaygii Axmed. Su'aad waan ku bariyaa guriga ku soo noqo. Biro subax markii la gaaro guri ayaa raasanaynaa.
haye waayahay haddaad saa sameynay aniga guriga ayaa ka tegayaa. haye waayahay waa balan soo bax. waan soo baxay oo dharkayga ayaan aruursaday. aniga waxaan la yaabanahay markuu hadaayi isoo wacay aan ku dhahay hoteel ayaa jooga ii imow, muxuu isku xanaajiyey cabaarka bacdan asagoo degan muxuu iisoo wacay. taas ayaa la yaabanahay ilaa hadda. guriga ayaa kusoo noqday, waxaa arkay ninkayga oo faraxsan oo isugaya. hab ayuu isiiyey. markuu hab isiiyey aniga waa ka xanaaqsanaa. asaga wuxuu igu dhahay waa ku baryaa Sucaad iyo cafi, guriga ahayn ayaa degi doonaa. markuu hadalkaas dhahay aniga aad ayaa u farxay. habeenkiina cashadeena ayaa cunay. maalinkaas waxba ma dhicin. uma aan sheegin ninkayga waraaqadii laatiinka ku qordheed F-ka ay dhahaysay caawi. waayo waxa uga helay suurabasanay asaga. subaxdii aroortii ayaan soo kacay. quraacda ayaan diyaariyay. markii dambe inaan dharka iska soo bedela ayaa rabay. qolkii anaa usii socda ayaa waxaa iga duu imid ninkayga. wuxuu igu dhahay guriga ayaa maanta soo kireenayaa. aniga waxaa ku yidhaahday inaa ku raaco oo guriga soo doorta ayaa raba. wuxuu dhahay maya adiga daqad kasta aan kusoo wacaya qabo ee guriga joog ayuu igu dhahay. wuu baxay. aniga waxaa garan waayey dabeecadihiisii isku bedeleen oo markasta u noqday qof xanaaq badan. daqad kasta uu isoo wacayay. markii dambe wuxuu imaaday guriga. markuu guriga imaaday wuxuu ii dhahay guri waa soo helay. anigana markaas aad ayaa u farxay. guriga waan gadanaa, qof kata ayaa loo soo helay, beri ayaan guuraynaa. gurigeena labaad ayaa usoo guurnay alxamdulilaah. laakiin gurigeena kale waa la gaday oo qof gala ayaa loo helay. markaa guriga soo degnaa isaga shaqadiisu ayuu aaday. gurigan wuxuu ahaa guri aad u degan. laakiin waxaa arkay anigu wax aan rumaysan karin. derbiga waxaan ku arkay wixii madooba. waxaa maqlay aniga hadal ah markasta aan baxdeed aniga igama dhuumanaysid meel kastaan kula jooga. cod dheer ayaan ku qeyliyay. waxaan ku yidhaahday yaa tahay adigu, maxaana iga rabtaa, iina jawaab. sidan ayuu igu jawaabay. wuxuu dhahay asaga weydii. waxaan ku yidhi asagee iimuusa jawaabin. waxaa dareemay in aniga waa la rabo. maalin maalmaha ka mid ah ayadoo sida wax cabsi aysan dhicin. haweenbarkii anoo telefoonka iska isticmaalay waxaa maqlay tiifiga asagoo wax ka daaran yihiin. waan soo baxay. tiifiga ayaan dimiyey. markii dambe qolkayga ayaa ku noqday. isla qolkii marka imaad waxaa maqlay isla tiifiga oo daaran. waxaa idhaahday maxaa tiifiga daaray. hoos ayaa usoo degay sidaa karootada dhan u dimiyo. tiifigii markaa agtiis imaaday waxaan arkay tiifigii oo karootadii dhan aan ku jirin. aniga waa yaabay markaas. kadib waan soo cararay. waxaan kusoo orday sariirteedii. aayado quraan ayaa akhrisaday. sariirteeda hoosteeda waxaa ka maqlayay qof ku jira. aniga haddana waa soo cararay oo waxaan usoo cararay dhankaas iyo banaanka. markii aan banaanka imid waa neefsaday. haddana qolkii ayaa kusoo noqday sidaan sariirta hoosteeda u fiiriyo. marka aan sariirta hoosteeda fiiriyey saa waa markii igu naxdinta badneed adduunka.